urur siyaasadeedka tayo ayaa waxa ay maanta shir ku yeesheen magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Shirkan maanta ka dhacay dalka Norway ayaa waxa lagu doortay gudoomiyaha ururka tayo ee dalka Norway iyadoo loo doortay inuu hogaamiyo Kayse Saciid Cartan oo ku magac dheer Cadami. xisbiga Tayo Party waxa uu ka mid yahay xisbiyada farakutiriska ee doonaya inay ummadda Soomaaliyeed ay abaabulaan una soo gudbiyaan qorshayaal qarameed aad iyo aad u wanaagsan kuwaas oo loogu talagalay suuragelin karana in midnimadii iyo qarannimadii iyo karamadii dalka Soomaaliyeed ay dib u soo noqoto. meelaha xisbiga uu ugu taageerada fiican yahay ama taageerada uu ku leeyahay waxa kamid ah dalka Norway, sida awgeedna waxa laga maarmaan noqotay inuu xafiis uu taageerayaashiisa ku abaabulo hawshiisana uu ku qabsado uu ka furto dalka Norway caasimadda magaalada Oslo. xafiiska faraca xisbiga ee Oslo Norway ayaa waxa la furay bishii July sanadkii 2012 isagoo ilaa waqtigaasi hawshiisa socotay, taasi oo macnaheedu yahay inuu furnaa muddo hal sano ah isla markaana ay ka shaqaynayaan howlwadeeno rag iyo dumar iyo dhalinyaro isugu jira. sidoo kale waxa xafiiska ka diiwaan gashan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway in badan oo bismillaah alxamdulillaah ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم أخياري دمانتين. وحا شرف إيا فرحاد إياه إن أن دهفره سنة قوردي كواد مركي اللي أساسي حافيز كحزبك التايو فرعي سأشلو qaasatan Norway oo dhan inaan mar labaad u dabaaldegno sanad cusub oo nooga bilaabanaya maantay, kaasoo aan rajaynayno inuu noogu bilaaban doono farxad, bashbash, barwaaqo iyo isku duubnaan ka sii weyn intii aanu muujinay sanadkii inaga tegay maantay. waxaan mahad weyn ii ah, sharafna ii ah, aadna uga mahadnaqayaa inaan min qof ilaa jamac idiin mahadnaqo kasoo qaybgalayaasha xubnaha xisbiga Tayo ee Norway. maxay tahay ulajeedadu? su'aal weyn weeyaan oo u baahan jawaab. ulajeedku waa isbedel dhici doona oo uu xisbigu ku muujinayo hal sano kadib inuu si dimuqraadiyad ah hoggaankiisa ula wareegi doono gudoomiye cusub kadib markaa idinku aad codkiina siisaan. soo bandhigidana iyo soo jeedintana waxaa lahaanaya xubnihii soo shaqaynayay oo uu hormuud u yahay Dr. Cabdulqaadir Khaliif oo ah gudoomiyihii hore ee xisbiga. waxaan rajaynayaa xisbigan aan hormuudka ka ahay aniga iyo saaxiibaday inuu noqon doono xisbiga dalka iyo dadkaba hanta. sidaas ayaan waxaan u leeyahay dawladda Soomaaliya halkaan bay ka bilaabanaysaa, waxayna noqon doontaa mid jiilba jiilka kale uu ku sii wareejiyo. ulajeedada kale ee ku jirta waxa weeyaan in aan ka soo baxno ballankeenii ahaa inay 12 bilood kadib dhici doonto shirweynaha xisbigu, inaga oo u ballan qaadnay gogashii ka horeysay ee nal ku soo doortay inaan ka soo bixi doono ballantaas. waxaan rajaynayaa dimuqraadiyadda xisbigu inay halka ka bilaaban doonto, horena u sii dhaqaaqi doonto sidii aan nooga barateenba. waxaan siinayaa kelimadda warbixin sanadeedkeena Dr. Cabdulqaadir Khaliif, gudoomiyaha talada haya markii hore, laakiin hadda aan rajaynayno inuu talada ka wareejin doono duruufo jira, asaga ayaana kelimadiisa oran doona. assalaamu calaykum. ku soo doctor. bismillaahir rahmaanir rahiim. walaalayaal, khiyaarta dhalinyarada waxgaradka meesha fadhiya culimada kulligiin waad salaamantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baan ugu faraxsannahay sanad kadib furitaankii xafiiska xisbiga Tayo ee Oslo Norway in aan mar kale shirweynaheennii shir sanadeedkii aan qabsano. aad baan ugu faraxsanahay inaan wajiyadiina wanaagsan arko dadkan qarannimada himilada qarannimo leh ee dareenka wadaninimad leh ee walaaltinimada Soomaalinimo leh inay horteeda fadhiyaan. aad baan ugu faraxsanahay. warbixinta ayadoo faahfaahsan oo qoran waa la idin siiyay, insha Allah cidii doontana si fiican bay uga dhargi doontaa. ayadoo soo kooban ayaan insha Allah dul mari doonaa. ugu horeyntii xisbiga Tayo madax qaran buu lahaa, waan ognahay. xogayaha guud ee xisbiga Mudane Maxamed Abdullaahi Farmaajo oo ra'iisul wasaariheenii hore ahaa, Dr. Maryan Qaasin oo hadda wasiirka dawladda federaalka, wasiirro kale, khiyaar kale oo badan oo hadda qaarna dawladda ku jiraan qaarna ay dibadaha joogaan ayaa jira oo dhanna shaqadii xisbiga ka wada runtii, dhanna qaarkood howl qaran ay ka wadaan. booqashadii Maxamed Abdullaahi Farmaajo kadib markii ra'iisul wasaarnimada uu ka tagay uu halkan noogu yimiday waxayna gelisay
iftiin bay abuurtay waxay abuurtay niyad bay abuurtay dareen wadaninimo ay abuurtay waxay caddaysay in madaxda heer qaran ee xisbiga tayo ay taageero weyn ku leeyihiin ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda marka lagu daro ummadda Soomaaliyeed ee degan Norway haddaba arrintaasi waxay keentay in abaabul laga galo halkan sidii xafiiska xisbigu xafiis ugu leelan lahaa sidii dadka Soomaaliyeed jaariyada halkan degan ee wadaniinta loo mobilize gareyn lahaa taa ayaa bilaabatay inaan processkeeda galno waan ku guuleysanay alxamdulillah waxa xafiiska la furay 1 July 2012 waa halkan waa idinka ku arkay hadda halgamaa boolay ayaa yimid halkan oo furay iyo Amiin Caamir khiyaar kale oo badan timid halkan madaxda heer qaranna way ka soo hambalyeeyeen oo la soo xiriireen inta kadib xafiiskii markaan furnay guddigii markii sanadka hore aad doorateen waxay qabteen howlo badan oo ka mid ahaayeen inay diiwaan gelintii xubnaha iyadoo waliba la xulayo deewaayo tayo waayo xisbiga magaciisu marka qof kasta lama iska soo gal maahane waxa weeye in la xulo oo laga fikiro way ayaa meesha ku jirta marka diiwaan gelinta xulashada ku samaysan oo qofku inuu garasho dadnimo iyo dareen wadaninimo leeyahay labada arrimood anagoo fiirinayna ayaan dadka qoraynay oo diiwaan gelinaynay waxaan xisbiga u furnay adigu account oo dhaqaalihiisa lagu maamulo way wadan nidaam labaan joognaa post address buu leeyahay oo waraaqaha iyagu soo dhacaan iyo address laga la xiriiro wuxuu leeyahay aftaala jiro ama habka dhaqaalaha lagu maamulo ayuu leeyahay si ay u cadaato maamulka dhaqaaluhu u noqdo wax cad oo transparency ah xafiiska waxa ka dhaca shirar aad u badan shirar baa ka dhaca doodo ayaa ka dhaca aqoon wadaarsi baa ka dhaca meediyaha iyo dadka waxgaradka dhexdooda ayaa ka dhaca maamulka iyo maartay maxaliyada ay waxgaradka maamulka iyo meediyaha ayaa ka dhaca xildhibaano Soomaaliya ayaan qaabilnay hadda wasiir ku xigaana u dambeeyo waan qaabilnay u dambeeyo imaanaya wiiga hore joogay marka sidaa ayaan maartay uga warhaynaa markay noqoto madaxda heer qaran adigu Mareykanka oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qaar kala joogaan waan la xiriirnaa si joogta laba wiig oo kasta waan iswacnaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wada tashi ayaan isu wacnaa shaladan ayuu nala hadlayay maanta insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu khadka soo galo oo nala hadlo waan ku ballanay sidaa dalka laftiisa waan kala xiriirnaa dadka laftooda jooga oo dawladda kamida iyo kuwa kale ee magaalada jooga intaba waanu xiriir baanu leenahay wada shaqayneed waxa weeyaan sidii aan ballan qaadnay sanadkii hore waa in doorasho la qabtaa dimuqraadiyadda oo anagu practice gareynaa marka sidaa awgeed ayaan shirkan doonaynaa inaan doorasho kale ku galno haddii la yiraahdo waxa gudoomiye u sharaxan oo anagu markaan magaalada fiirinay guddigeeni howlwadeenkii waxa waa anaga niri tayaan doonaynaa waa anaga niri criterion leenahay wax ku xulano markaan magaalada fiirinay aan xubnaha iyo hadii ilaahay maayo bulshada kale jaariyadaba aan fiirinay oo dad badan la wada tashi la sameynay waxa inoo soo baxday in ay aan u baahannahay walina xisbigu wuxuu ku jiraa dhismaheeyu ku jiraa oo sidaan sheegi doono wali xafiiskana wuu furmay laakiin xafiiskan ballaarintiisa iyo xisbiga heer qaran dhisidiisaba way soo socotaa arrimaha anagoo qiimeynayna waxaan u garanay marka anigana duruuf ila timid awgeed ugu soo gaagtay wadankii inaan aadaan doonaya haddii la yiraahdo oo halka aan maartay arrimo waxbarashada dalka la xiriira aan ka galo haddii la jaamacad ku taal Muqdisho sidaa ayaan haddii la yiraahdo u baxaya marka si fiican oo wanaagsan baan uga fikirnay dhowr maalin baan tashanaynay guddiga haddaanu nahay dad kalena waan la tashanay waxa inoo soo baxday in aan u baahannahay weli qof aqoonteedii kartideedii dadnimadeedii leh oo kriteeriyadii aan xisbiga la jeclayn ka soo bixi kara wuxuu inoo noqday walaalkeen abukaate Dr. Kayse Saciid Cartan oo halkan fadhiya ayaan maartay ku go'aansanay marka insha Allah Kayse jaamacadda ummadda Soomaaliyeed nin ka soo baxay waaye halkan wax ku bartay waaye nin businessman magaaladan jooga waxa uu degan waaye nin khiyaar waaye insha Allah qaranku inta wixii uu soo diyaarinay ayuu hadda asna jaanis u helay adinkuna insha Allah waxa weeyaan hadda doorkii loo soo diyaariyay qofkii la soo diyaariyay mar hadduu noor kacayo waa inaan ogolaanaa in ay doorashadu waqtiga ugu kooban ugu qaadan doonto codka kalsoonida aan siin doono sida gudoomiyahayaga outgoing ah idin weydiistayna waxaan rajaynaynaa in aadna siisaan cod kalsooni ah ee uu ku maamulo xafiiska laanta tayo si uu uga qayb qaato horumarinta dib u soo celinta iyo caga ku istaajinta qarankii ummadda Soomaaliyeed annaguna waxaan nahay garbihiisii xubnaha iyaga kale tan markaa kadib ayaa loo gudbi doonaa insha Allah wax walbana waxa lagu qali doonaa midi xalaal ah
waxaan fasaxayaa inay codka kalsoonida maya waxaan qaybiyey kaarar laba midab leh kaarka hurdiga ahi waa diidmo kaarka midabka kale leh ee buluuga khafiifka ahina waa yeelmo waa haa markii ay soo gaarto xubnaha in loo cod qaado gudoomiyaha in cod la qaado qofku gacan kaliya ma taagaya wuxuu taagayaa warqad midab leh si aan u ogaano midabkaasi inuu yahay haa ama maya waxaan rajaynayaa Abdullaahi Daawud ayaa wuxuu bedelay wariye Xasan Rasto waana kalsooni gelinaysaan baad moodaa rutina wajiye aad iyo aad u faraxsan ayaa gacmaha kor u taagaya waxaan rajaynaynaa codku ilaa hadda dhinac buu u badan yahay dhinaci khayr qaba Allah ka dhigo gudiga ayaan u daynayaa inay kelimada yiraahdaan marka ay codka iyada tiriyaan waxaan halkan ku haynaa tiro 22 haa ah afar nay ah ama no ah ama maya ah hadda sidaad ku taqaanaan waxaan halkan ka cadaynaynaa nayda waa ku dara u malaynayaa waxaan halkan ka cadaynaynaa haddii walaalkii ugu raaco in mudane Kaysa Cadame uu yahay gudoomiyaha xisbiga Tayo faraciisa Oslo dalkan Norway sidaasi lamida codeyntu u dhacday sida uu inoo sheegay waa inuu ugu hambalyeynaa doorashadaasi loo doortay dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo mahadnaqaynaa aniguna waxaan ku qasbanahay inaan hambalyeeyo aan iraahdo rabbi xilka lagu doortay ha ku qarab galo hana ku fududeeyo abukaate Kaysa Saciid Cartan meediyada meesha joogta waan u mahadnaqaynaa waxaan kelimada siinayaa the outgoing president tagayna horeeto in uu kelimad farvel ah yiraahdo Dr. Abdulqaadir Khaliif oo aan rajaynayna asaga laftigiisu inuu macallim jaamacadeed ka noqon doono magaalada Xamar ubadkeena mustaqbalkana uu bari doono dimuqraadiyadda halkan ka dhacday fariinteenana uu sii xambaari doono waan filaynaa anaga laftigeena in aan u xiisi doono kaalintii uu ka baxayna waxaan noo soo galay aqoonyahan kale oo Soomaaliyeed Dr. ku soo dhawow kaale kelimadaada dheh walaalahay mar kale waa idin mahad celinayaa runtii dadku iyagoo walaalo wada ah ayaa haddana walaalkii aad halgan isla gashaani uu meel gaara ku sii yaala waxaa laga sheegay Umar ibn al-Khattab inuu yiri lawla ruk'ayatin fi al-layl wa akhin fi Allah a'yinuhu wa asta'inuhu lama kana lil hayati macna wuxuu yiri hadaanay jiri lahayn uu yiri nin hadda muslimu ah weyn waa ognahay oo khalifatul mu'miniin amirul mu'miniin wuxuu yiri hadaanay jiri lahayn uu yiri ruk'ayatin fi al-layl salatul layl an tukanayon ilaahi ajir janna uga rabo iyo walaalahay muslimiina oo aan garabsanayo garabna siinayo hadaanay jiri lahayn uu yiri noloshu macnaba ma lahaateen buu yiri marka taa waxay ku gaareen daan ogna hadda inay ku qabsadeen adduunkii oo dhan ragaasi waa iskaashigaas iyo iimaankaas marka aad baan ugu faraxsanahay especially waxaan mahad gaar ah u celinayaa walaalaha Ismaaciil Karar Mahad Abdi Tahliil Kayso hadda nagu soo asna noo yimiday walaad Naciimo Duniyo Marian dad waxaa jira dhalinyarada wanaagsan oo adka Umar Diiriye ikhyaar waxaa jira Tarambi ikhyaartan jaamac Xundubey ikhyaar waxaa jirta aan dhamay karin adeer Cabdi Faarax kulli oo hadda rag ya dhalinyaro oo garabkeena taagnaa oo doonayay inaan bargaraankan qaran aan maartay waxaan ka qaban karno aan ka qabanno insha Allah aad baan idinku mahad celinayaa wada shaqayntii aad sameyseen nafurkaad sameyseen waxa way runtii waa team aad u wanaagsan tayo xafiiskan hal la ogaado dad waxay yeelatay wanaagsan oo yacni ma sha Allah core group qiimo leh ama group asaas oo qiimo leh ayay leedahay taa waan u sheegay farmaajo uu og yahay insha Allah halkan waxay noqonaysaa meelaha ugu waaweyn laga hago siyaasadda xisbiga ayay noqonaysaa ninkii damac ku jirana dee waa halka dad badan oo wafdiya inta laga diro ay baarlamaanka heerka qaran iyo wasiirada iyo aan kaftamay ay insha Allah ka qayb gali doonaan waa halkan laga diraya hal la ogaado taana oo dhalinyaradu especially ha ogaato marka aad baad u mahadsantihiin waxaan inta baan ku soo gabagabeynayaa waxaan idin leeyahay
saaxiibtinimadii walaaltinimadii taageeradii xisbi wixii oo dhan intaan halkan joognay waan idinkaga mahad celinayaa insha Allah waxaan idinka rabaa duco muqdisho xoogaha sharteedu way ma yara insha Allah waxaan doonayaa inaan baxo waxbarashada quality-deedu waa muhiim 50,000 report hadda la ii soo diray 50,000 oo ardayda jaamacad dhigata jaamacad kaliya 1989 markii oo kaysa joogay jaamacadda Soomaaliya cirka maraysay 15,700 dhiganaysay markay ugu sareysay waay oo jaamacad qaran ahayd laakiin de quality markay noqoto ayay dhulka yaaliin marka halkaasina shaqo weyn bay u qabantaa waa meeshii hoggaanka mustaqbalka waddanka laga soo saari lahayd waay marka shaqo qaran baan ka tagayaa shaqo qaran baan aadayaa igu soo duceeya insha Allah waad mahadsantii kelmadda xigta waxaan siinayaa hoggaanka cusub oo aan dooranay si uu intii cod siisayna ugu mahadnaqo ballanqaadkiisii siyaasadeedna uu kelimad nooga yidhaahdo ma filayo inuu wada faahfaahin karayo laakiin ereygii mataqaanaa soo koobi lahaa wuxuu inuu oran doonaa filaya ku soo dhawow kayse bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan xubnaha ururka tayo odayaasha dhalinyarada marti sharafta saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ama bacda waxaan aada ugu mahadnaqayaa guddoomiyahayagii hore dhammaan guddigii intii la soo shaqaysay muddadaa sanadka ah oo aynu maanta aragno midhodhalka hawshii ay qabteen aynu u fadhino halkan aniga laftigayga oo wakhtigaa ka maqnaa dalkana igu kaliftay inaan ka mid noqdo si degdeg ah ururka isla markaana nasiib wanaag ay itusayso dimuqraadiyadda iyo halka ay gaareen inaan isla markiiba hoggaanka haddana aan ku soo baxo muddo gaaban oo aanan filaynin runtii surprise igu noqotay laftigayga aanan filaya dad fara badan oo dambe insha Allah mustaqbalka inay sidaa ugu soo bixi doonaan intaa kadib waxaan runtii hoggaankeeda qabtay xisbi aada u weyn ummadda Soomaaliyeed ay sugayso runtiina aanan maanta idinka sheekaynaynin taageerada uu ka haysto dalkii iftiinka uu u sameeyey ummadda Soomaaliyeed oo aad ogtihiin inay qabiil iyo dhibaato iyo dagaal uu soo dhex maray iyadoo intiiba mar keliya ilowday looga mudaharaadayay dhammaan dalka Soomaaliyeed meel kasta uu yahay iyo dhammaan qurbaha oo ay ka mid tahay meesha tan aynu joogno taasina waxay ku tusaysaa himilada uu hiigsanayo wadada cad iyo toobiyaha wanaagsan ee uu ku taagan yahay xisbigaasi oo aan ilaahay ka rajaynayno inuu noqdo mid horseed u noqdo ummadda Soomaaliyeed inay dib isugu timaado midowdo halkii ay ahaan jirtay haybadii iyo sharaftiina dib ugu soo celiya oo aan ilaahay uga baryayno intaa kadib runtii waa la soo asaasay xisbigan xafiiskiisa Oslo rag baa ku soo tiir iyo tacab beelay meel dhaxaan kala qabsaday waxaan ilaahay ka baryayaa ballanna qaadayaa in halkii meel ka sarreysa mooyee inaanu dib uga dhicin oo aan hore u sii wadno hawshiisa waxaan ballan qaadayaa in dhammaan qalbigayga dhagahayga iyo maskaxduba ay u furan yihiin fikradihiinna aaraadiinna iyo dhammaan la shaqaynta aad ii fidisaan inta aan xilkan hayo haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ballan qaadayaa inaanan wax reaction ah ama aanan ka keenin cabasho wax kasta oo igaga yimaada inta aan gacanta ku hayo hawsha xagga hawsha iyo xagga xubnaha ururka haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynayaa shirka ku xiga haddii alla idmo sanadkeena dambe intan in ka badan iyo meel ka weyn weliba aan xoogga saaraya haddii ilaahay yidhaahdo in aynu kasbanno dad fara badan oo tayo leh oo ka turjumaya hadafka iyo ujeeddada ururka inaynu isugu nimaadno haddii ilaahay yidhaahdo waxaan mar labaad anigoo ku hadlaya magaca xisbiga tayo xafiiska Norway dhammaan guddiga ila shaqeysa ama ila shaqeyn doonta dhammaan xubnaha odayaasha aan aad ugu mahadnaqayaa Dr. Cabdiqaadir Khaliif oo halkaas soo gaarsiiyay una soo jilib dhigay meel aan waxba jirin inuu ka soo bilaabo inuu maanta halkaas soo gaarsiiyo Cabdiqaadir waxaan ku leenahay aad baad mahadsan tahay waan ku ducaynaa ducada Cabdiqaadir dalbaday mid la mid ayaan dalbanaya anagoo Cabdiqaadir u sii ducaynayna Cabdiqaadir ilaahay ku nabadgeliyaan leenahay dhammaan si wada hore u sii qaado in ilaahay la garabto waad mahadsantihiin dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah maadaama waqtigu aad noogu yaryahay ma rabo inaan wax kelimada aan iraahdo kaliya
waxaan rabaa inaan guddoomiyaha hadiyad yar guddoonsiiyo hadiyadaasoo ah miduu aad ugu baahan doono fadlan waxaan kaa codsanayaa jaale guddoomiye inaad horey soo istaagtid jaale guddoomiye meesha u socotid annagoo dareensan waxaan garanay inaan hadiyadan qaaligaa ku siino oo kulligood baahidooda aad u baahan doontid midda koowaad waa toosh meesha u socotaay waa meel korontadeeda xadidan tahay musqulaha koronto ma leh qofka Yurub ka yimid ee nalalka u bartay waxaan ka baqnay inuu boosaneero iyo wax la mid ah ku dhaco saa daraadeed ma rabnaa naga jabto horta iga guddoon tooshkan midda xigta waa shay Soomaalidu aysan aqoon oo qofka inta badan qurbaha jooga ay aad u isticmaalo waa waxa loo yaqaano roig detector ama smoke detector kaasoo ah mid guriga aad ku dhajisanaysid lacalla haddii dab uu dhaco si uu kugu qayliyo guriga aad aga baxdo qorshe aad u baratay aad u isticmaashid ayadana iga gudoomiyaa midda kale oo ayaduna ka sii muhiimsan dalku dhibaato badan ayaa ka socota waxaa laga yaabaa dhaawacyo yar fudud inay soo gaaraan halkan waa first aid traveler loogu talagalay oo sharootadii iyo baashii faashadii iyo baashii gacmaha la isaga tirtirayo dhan si aad isku daaweysa haddii la calan shuban iyo wax dhaco biyo waa qaladayna aad iyo aad baan u faraxsannahay maadaama aan kula shaqayno Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka ama safar la mar si aad qof u baratid ama maxay ama jid la mar annaga garanayna qiimaha aad leedahay wanaagga aad leedahay waxaan rajaynaynaa adiga iyo familkaaga Ilaahay inuu ku xafido waxaan rajaynaynaa goobtan goolaan ahayn oo dalkeenni ah inaad position-kan ka fiican nooga qabatid si aan u aragno horumarka dalkeenni shaqadan halkaa ka sii wadid balse hadda xoogga aad saartid tacliinta iyo ummadda iyo dhalinyarada inaad bartid waxa ay tahay dimuqraadiyadda iyo maaragtaa waxyaabaha tayada leh aqoonta tayada leh si markaasi haddii ay noo bataan dalkeennu uu maaragtaa uu horumar kale oo kan aan hadda haysana ka duwan ugu galo waad mahadsan tahay 100%. inta technicality-gu uu socdo waxaan bilaabayaa marka khudbadihii ay oran lahaayeen ugaasyadeedu dhaqankayagu saraakiishayada aqoon-yahankayaga kaleeto oo dhan kelimadda koowaad waxaan siinayaa cabdi faarax korneel cabdi faarax ayaan siinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anugu korneel ma ahi dowlad kasta markay burburto darajadeeda waa raacda marka qolyihii burburka raacay baan ka mid ahaa laakiin magacaas hore wuu jiraya waxaan u mahadnaqayaa marka hore dadka soo agaasimay xafladdan oo annaguna aanu soo ajiibnay oo soo buuxu dhaafiyey qolkan dhammaantiin walaalayaal murwooyin iyo mudanayaal waad mahadsantihiin waxaa kaloo mahad leh ilaahay weynaayo waaxid ahay oo na abuuray oo nagu kulmiya meesha waxaa kaloo mahad leh waxaa weeye xusbiga tayo iskama imaana dad baa u soo burburay oo maxaanku idhaahdaa xilli dheer soo jiidayey xaafis u furay qarash ku bixiyey inay dadkan kulmiyaan ka soo shaqeeyey arrin cayaar ku timid maaha waa arrin loo soo daalay weeye xusbigu marka ma aha qabiilla ma aha qof gaarana ma aha waa wixii qofku u arko dantiisu meeshay jirto inuu kala qabsado waxaa weye qofka hargeysa jooga iyo qofka baalkale Norway jooga waa dad kala fog weeye haddii dantaadu gasho xusbiga adoo hargeysa jooga yaad ka mid noqonaysaa oo waxaa tahay xubin xusbi runtiina waxaa weeye hoggaankiisu waa hoggaan aad iyo aad u wanaagsan aad iyo aad hoggaan u wanaagsan weeye muddadii yareedoo farmaajo us hayey xilka oo 6 bilood ahayd dadka Soomaaliyeed dhulku ka qaad aad bayna u jeclaayeen asaguna wuu jeclaa dadka waxaa weeye marka cabdulqaadirna mahad baan u naqaynaa ilaahay baa mahad leh hawsh u socdana allah kugu guuleeyo waxaad ka tagtana waxaa weeye waa raad iyo sumad fiican weeye guddoomiyaha cusubna waxaan leenahay walaal soo dhowaad hoggaankii waad qabatay allah ku guuleeyo adigana cabdi faarax waa mahadsan tahay inkastoo asagu uu yiri waxaas waa isla tageen laakiin anaga weli
harag shabeel waa noo harag shabeel korneylku waa noo korneylkii waxaan filayaa technicalitigii hadda inuu diyaar yahay baan u malaynayaa oo maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku jiro hawada oo uu kelimadii doorashadan oran doono bismillaahi raxmaani raxiim masmaqlaya waxaan runtii aan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kulligii dadka sharafta leh ee kasoo qayb galay xafladan lagu kala maxaanku raahdaa lagu kala wareegayo xilka anoo si gaara ugu mahadcelinayo gudoomiyihii hore ee faraca tayo maarti aan ka jira tayo ee oslo doctor cabdiqaadir khaliif waxaan uga mahadcelinayaa runtii sida leadershipka leh uu uga aas-aasay xisbigan iyo sida uu isugu keenay tiimka hadda guddiga ku jira runtii waa ku ammaanan yahay wuxuuna muujiyey runtii soomaalinimo iyo karti taasoo hadda ilaa maanta na soo gaarsiisay in guddoomiye cusub aada doorataan oo faraciina ah ee oslo mudane kayse cadami oo aan runtii aan ugu maaragtay bogaadinayo aan soo dhaweynayo doorashadiisa waxaan u rajeynayaa hadduu ilaahay yidhaahdo in xilkiisa ilaahay u fududeeyo una kasii wada meeshii doctor cabdiqaadir khaliif uu uga tegey iyo shaqadii wanaagsanayd uu cabdiqaadir khaliif uu soo gaarsiiyey meesha hadda taagan tahay waxaan ilaahay uga baryayaa isagii iyo guddigiisa in ay meesha kasii wadaan oo la xoojiyo oo membershipkii iyo dadka taageerayaasha ah la kordhiyo waxaan markasta loo baahan yahay inaan u mahadcelino shacabweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan taageerada aan kala joogsiga lahayn oo ay weligoodna siinayeen ilaa hadda meel kasta ay joogaan maxaa yeelay waxaan ognahay shacabka soomaaliyeed inay yihiin shacab wanaagsan laakiin dhibaatooyin fara badan lasoo kulmay 20 sano hadda ugu dambeysay 23 sano ugu dambeysay kuwa gudaha ku jira iyo kuwa dibadda joogaba kulligood ay ka midaysan yihiin runtii in dhibaato dee qofka haduusan marna uusan lahayn hooy waxaa xaqiiqa ah inaysan niyadiisa deganayn ilaahay waxaan uga baryaynaa ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed oo wanaagsan inuu ilaahay dhibka iyo dhibaatada haysa inuu ilaahay ka qaado meel kasta ay joogaan kuwa qaxootiga ku jira kuwa lagu leynayo south africa wiilkii hadda ugu dambeeyey oo isagoo nooloo qaawan dhagax lagu dilaayay isagoo loogu dilaayay dhagaxaas inuu yahay nin soomaaliyeed kuwa xabsiyada ku jira kuwa maxaan ku rahda badda ku dhammaanaya kulligoodba ilaahay waxaan uga baryaynaa in dhibaatada uu maxaan ku rahda naga saaro yaan ilaahay uga baryaynaa xisbigeenu haddee waa wuxuu hadda jirsaday 1 sano waxaan rajeynaynaa dalkeena in uu noqdo dal sida wadamada hadda aan joogno dibadahoo kale ah rule of law uu ka jiro oo xisbiyadu ay ummaddu ku dooranayaan maxaan ku rahdaa xisbiga shaqadu qabto iyo programyadiisa iyo sida ay u shaqeynayaan iyo tiimka xisbiga in lagu doorto oo aan lagu dooran hab qabyaaladeed aan lagu dooran maxaa yeelay waxaan ognahay qabyaaladda waxay noo geysatay 23 sano ugu dambeysay macnaheedu ay tahay qabyaaladdu inay tahay kala qaybis ummadda soomaaliyeed lagu kala qaybinayo in aan ka gudubno kala qaybiskaas oo weliba hadda aan maqlayno nasiib darro dad badan inay hadda weliba durbaan u tumayaan qabyaaladda in la soo celiyo oo dadku ay ku kala qaybsamaan oo lagu celiyo siday ahayd 20 sano ka hor
sida annagoo aanan weli khibrad ka helin dhibaatada ay qabyaalad noo geysatay. marka xisbiyadu waxay keeni karaan in laga fakero danaha qaranka. danaha qaranku waxa weeye in qarankaasi uu la tartamo, hadday noqoto dhan dhaqaale, hadday noqoto dhan waxbarasho, hadday noqoto dhan maxaan ku radaa horumar, dowladaha caalamka, kuwa deriska iyo adduunka oo dhanba aan kula tartamo. laakiin xaqiiqda waxay tahay qofkii dan qabiila durbaan u tumaya sideedaba haddee dan qabiil kulama tartarsin karto dowladaha adduunka isu tegay oo qoomiyada kala duwan ah oo kala luqad ah oo tuulada u dhow ay ku kala hadlaan luqado kala duwan iyo dhaqan kala duwan, laakiin ku heshiiyey inay kuwada noolaadaan under one political organization ama qaran macnaha ku heshiiyeen inay kuwada noolaadaan. marka annagoo walaalo ah oo maxaan ku rahdaa waxba ku kala duwanayn oo meeshaad Soomaali ka tagto daraf iyo dacalba aadan dareemaynin inaad maaragta ka duwan tahay dadka kale, in maanta lagu soo celiyo wax la mid ah qabyaalad runtii waa wax maaragtay aad iyo aad looga naxo. waa macnaheedu waxa weeye ma joogna qarniga 21aad, waxaan joognaa wadamada hadda aad joogtaan qarniyadii ay joogeen 500 sano ka hor. marka haddaan rabno adduunka inaan la jaan qaadno oo aan wax la qaybsanno ama aan la tartanno, waxaan kula tartami karnaa hab qaran. hab qabiil iyo dan qabiil lagulama tartami karo. marka xisbiyadu waxay suurtagelinaysaa mustaqbalka in dadku isku raacaan mabaadii, aysan isku raacin iyo abtirsi, ay isku raacaan waxqabad iyo wadaninimo isku raacaan. marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ay si fiican noogu bilaabato oo kayse gudoomiyaha u doorateen iyo guddiganaba ilaahay hawsha idiin fududeeyo oo dadka aad la joogtaan aad ku baraarujisaan in la xoojiyo xisbigeenna iyo guud ahaan xisbiyada Soomaaliya laga dhisi doono si looga gudbo waqtiga hadda aan ku jirno oo qabyaaladu ay cirka marayso oo aysan dadku macnaha aysan fiirinin wixii shay dhacay, uusan caqliga shaqaynaynin. marka ilaahay hanoo gudbiyo. runtii waa wax loo isticmaalo in Soomaaliya lagu kala qaybiyo oo awoodooda lagu kala dhimo. maxaa yeelay qabiil uu istaagi kara inuu Soomaaliya difaaco ma filayno, mana jiri karo. laakiin markii la isu tago oo ummadda dhan isu tagaan, khasbiyan waxaa ah oo danguud laga hadlo, waxaa khasbiyan ah in aan la tartamo annagoo qaran ah dal walba oo adduunka jira aan la tartamo, weliba aan ka hormarno. maxaa yeelay annagu dad waxaan nahay homogeneous ah, waxaan nahay dad dadaal badan oo runtii waxay u dhaqaaqaan meel ka gaara oo qabta yaan nahay. marka haddii ay noo hagaagto isha siyaasadeed ay noo hagaagto oo ummadda Soomaaliyeed ay ogaadaan inay dad ugu jirto inay wada noolaadaan, oo ka danaystiga ah oo danaysiga ah oo qabiilada ku adeegta oo danta shakhsiga ah wata maxaan ku rahdaa danihiisa shakhsiga ah laga gudbo. waxaan hubaa ummadda Soomaaliyeed waa ummad fiican oo aad iyo aad u caqli badan, laakiin dhibaataa nagu dhex jirta. ilaahay dhibaatadaas naga saaro insha allahna inaan soo celino axzaabihii iyo maxaan idhaahdaa mabaadi'dii dadka lagu dooranayay inay tahay maxaan ku rahdaa mabaadii qofkii raacsan mabda'aas inuu soo raaco xisbigaas. marka insha allah waa bilow, waanu guulaysan doonaa hadduu ilaah yiraahdo mustaqbalka. hadduu ilaah yiraahdo waanu guulaysan doonaa. waa mahadsantihiin. aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa kelimada qaaliga ah ee uu xogayaha guud ee xisbiguna siiyey. runtii weli barnaamijkeena fari kama qodna. hadda waxaan kelimad siinahayaa korneyl xuseen maxamuud tarabi oo oranaya bacda xogayaha kadib kelimada ku haboon meeshaas. dhammaantiin waa idin salaamay.
soomaalidu waxay oran jirtay fadhi iyo fuud jicibeed layskuma helo waxaan u malaynayaa guddoomiye baxay iyo guddoomiye yimid horta bahasha xoogaa yar aan kaftan ku dare markii guddoomiye la dooranayo maadaama xisbigu xisbigii tayo yahay tayana ay quality tahay soo maahan keesi in nin kaloo la tartama la soo istaajiyo horta waa kow taas kaftan weeyaan laakiin bahashu dimuqraadiyadu waxay leedahay in la tartansiiyo vote haddii la qaadayo hadda ka hor ayaa anigu xisbigii ayaan ku jiray kacaanka marka mar allaale markii anigii xasan abshiraha isku korsi fariisin jirnay marka waa fuuli jirnay kuraasta korkeeda istaagi jirnay tifooso adagaan ahayn marka midaa shirbo wuxuu yidhi nin dooran ay hala doortaa leeyihiin ou yidhi moogtahay hadda kayso iska dooray aan horta doorannay waa alxamdulilaah waan ka gudbayaa taas waa kaftan kaysi adiga hal baan ku leeyahay niyahow waa kula shaqaynaynaa laakiin waxaad iska dhowrtaa xagal waa qodob kaas kaysaan kula dardaarmayaa cabdulqaadirna waxaan kula dardaarmayaa asagana hadda war fiican uu sheego jaamacadu u socdaa inuu wax ka dhigo hal qodobaan kugu xirayaa dadka Yurub iyo Ameerika anu meesha haddan ka imid haddana waa u socdaa 3 biloodaan dhex wareegayay albaab walbana waa garaacay situationka meesha yaalna waa arkay adiga halan kula dardaarmayaa dadka ku bartay Yurub iyo Ameerika wadanka dibadiisa jaamacadaha ku dhameeyay oo aan qabiilka aqoon on abtirsiga aqoon iyo ninka dhiiga ku dhashay oo hadda 50 milyan oo jaamacada dhigata 50 kuna siday isula jaan qaadi lahaayeen saam arbaaiden say isula shaqay lahaayeen waa laga rabaa waa dardaaranka iyo wixii aan soo arkay labadan nin oo ninna u qabo inuu jaahil yahay midka dhiiga ku dhashay ama mashiidiye yahay midna u qabo inuu doqon yahay labadaas nin la rabaa inay isla shaqeeyaan cid la kaashanay la kaasho taas Cabdulqaadir Khalifaan leeyahay dadka halkan fadhiya ee xisbiga ka tirsan halaan leeyahay xisbigu wuxuu u baahan yahay taageero badan horaa loo sheegay laakiin arinta dhaqaalaha lagama hadlin xisbigu dhaqaalana waa u baahan yahay xisbiga contribution u baahan yahay dhaqaalo mid lamar hora shilimaadkiisa inuu geliyo jarmalku wuxuu yiraahdaa makhti nisht komti nisht wax samayn la'aan wax ma yimaadaan aan hubaa xamar anigu markaan tegay dadka hadal haya xisbiga tayo markii 3 qaybood dadka wadanka degan loo tiriyo 2 qaybood xisbiga tayo ayay tifooso u yihiin waa wax proof ah assalaamu calaykum walaalayaal walaalayaal war badan maan hayo oo kama aan gaashaaman koow waxaan soo dhaweynayaa waxaan sagootiyahayaa gudoomiyihii hore ee Cabdiqaadir ilaahay nabad ha kugu geeyaan ku leeyahay meel xabad badan way jirtaa xoogaha waa inaad taqaano jiir aan golada gudoomiyaha cusubna waxaan leeyahay soo dhawow baan ku leeyahay walaal insha Allah taala wax badan kama aan hadli doono kama aan gaashaama laakiin waxaan diidanahay maadaama uu xisbiga dimuqraadiyadda yahay inay gabdhaha meesha ka maqnaan baan meesha u soo istaagay walaalayaal waxaan ogsoonahay anaga wax badan qasaare inaan ku dambeynay aniga waxaan ahaa qofka ugu jecel adduunka habeenkii marka aan shaqada ku maqanay waxaan dheeri jiray inaan internetka inta tago aan wax ka eego Soomaaliya maxaa ka socda maanta magaalada Muqdisho maxay Soomaaliya ku dambeysay laakiin nasiib darradayda maanta waxaan joojiyay inaan internet eego inaan ag fariisto inaan wax ku jiraba eego sababaha aan u joojiyana waxay ahayd waxaan daawanayay gabdho Soomaaliyeed oo jooga meesha la yiraahdo Liibiya ka sheekeynaya kuna jiray YouTube-ka gabar kamid ah hadlaysa ay tiri annaga wiilal waxaanu nahay bay tiri 60 wiilal iyo 12 dumar ah 60 wiilasha waxay tiri subax baa la kaxaysta meel la aadmaan oogin annagana markaas meesha aan nool ku faylaabay tiri intay ragga maqayeen habeenkii baa waxa la soo hooyaabay tiri ayagoo baaba wiilasha laakiin ma aan oogin bay yiraahdeen wax lagu soo sameeyo kow waxaan ogsoonahay kuwa badan in inta la soo guro banaanada lagu daadsho
adduunka waqtiganaga wuxuu ku dhammaaday nin qabyaaladaysta ah oo asaga interest uu shakhsi ah haysto oo jeebkiisa wax u raadinayo wiil iyo gabar iyo walaal wuxuu ka naxaana aan la arag inaan waqtiganaga ku lumino oo qabiil iyo durbaan uu noo garaaco waqtiganaga uu ku lumo wiilkanaga uu ku lumo 50 qof daraad ku dhimatay ee badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga waxaan ogsoonahay 51 qof inay ku dhinteen waan akhriyay tuulo kastoo ka soo jeedaan baa la akhrinayay dadka meesha ku jira dumarka iyo ragga ahaa tuulo Soomaaliya kamid ah oo aysan ku jirin baa way dadkaas jirkayga baa isrogay saacadan baan ooyahay kaligay waxaan idin leeyahay waanu gumownay oo waanu baabacnay oo wiil iyo gabar iyo oday bay noo saameysay tuulo kasta oo Soomaaliya adduunka ka joogna caalamkana waa nala ka barto qasaarahanaga waa mid lagu raaxaysto waxaan daawanay kuwa beerkooda lala baxaya oo Sacuudiga madow u beerka ka guranaya kuwa gacmaha iyo luga inta ka xirxiray uu tumahayo waxaan leeyahay tayo waa inay noqoto insha Allah taala tii Soomaaliya midaysay oo cudurka naga saartay oo qalbiga naga midaysa hal nin oo idin kamid ah caawa ma u jiro banaankaas qof igu jiidanaya hadaad aragtaan hal nin oo damiirkiisu uu siin kara inaad iska kay dhaaftaan idin kuma jiro mid walba meeshuu taagayo ka damqanaya uu leeyahay warday waa Soomaali halka baa ka wada leedihiin waxaan ogsoonahay waxa maanta nahaya iyo gudnimada Ilaahayna nabadin oo anaga aanu isbadnay tayo waxaan leeyahay guulaysato waa inaad hurdada ka kacdaan waa qabiilka meeshuu naga daadshay waad aragteen waanu hoognay gabdhahanaga gumbaynu noqdeen ninka adduunka dadka caalamka ku nool oo dhan ayaa maxaan ku dhahdaa laba mid u haysta maanta waa noola ka sheekaystaa suuqa waqti gabdhahanaga lagu faarin jiray baa joogan maanta ma aan faani karno kurdiga ayaa jiidanaya kan maxaan ku dhahdaa ka sheekayn baa jiidan xataa kan cadaanka wadanka u dhashay haduu jiidan lahaa waxaan xadin badan ma aysan lahayn rago waxaan idin leeyahay insha Allah taala waanu baabano waanu gumownay warna daba qabta ayaanu idin leenahay oo waa inaad madowdaan insha Allah taala waanu ku fogaaday walaalayaal Ilaahay waxaan idin kaga baryayaa qalbigiina inuu isu soo duma oo aad naga saartaan waxa aanu ku noolnahay iyo gudnimada wiilasha kan sii socda kan yimidna waxaan leeyahay Ilaahay ha idinku guuleeya odayaasha waa inay xil isa saaraan waa inay guddi xoogan samaystaan dhalinyarada waa inay sidoo kale saxaafadda ragga qora Ilaahay ha guuleeyo waa kuwa ugu dhow baan dhihi karaa ma garanaysa inay waxun isku dayaan ayagana waan u mahad celinayaa idinkana Soomaaliya way luntay gun baanu noqonay waa inaan daba qabataan qabiil nin walba qoyskiisa gurigiisa ay ugu gashay dhibaatada aniga saddex ila dhalataan lagu dilo walaali assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal ilaahay mahadiis weeye ilaahay meeshaan isugu keenay annagoo muslim ah oo walaalo ah oo wada dhalanay oo isku diin ah oo isku mid ah oo isku dhaqan ah rabbigii meeshaan isugu keenay oo nu kulmiyo intaas inaan isu nimaadno ilaahay xugmay baa mahadnaq waxaan kaloo mahadinayaa oo mahad u celinayaa dhalinyaradii xilqaantay oo shirkaan noo aabishay waxaan mahad saddexaad u celinayaa guddigii fulinta ururka tayo oo halkaas la soo waday xilka kan aan ogahayna waxa ay ka soo mareen anigu kulli xoog ahaan baan u ogahay si gaar ah aan dadka ogeyn baan u ogahay ayaga dhibta ay soo mareen iyo wixii ay ka soo mareen iyo wixii ay geedadayga ay ka muujiyeen baan ogahay ayagana mahad baan u celinayaa waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub ee ururka tayo kayse cadami walaal soo dhawow taas markaan taas uga gubdo waxaan leeyahay anagu Soomaali baana laabulkac baan naqaan wax laab la kac la yiraahdo maalinka hore halkaan shirkeena isugu kadabaysan waan ir haddana waan leeyahay ururkaas macnaha rabitaankiisa markii la raadinayo oo in aan lagu dhawaaqin dhibti iga soo martay aniga Cumar baa garanayo in gacan kaas ninka halkaas taagan karar iyo aniga iyo ragii la mid ah in gacan xataa ragnoola yimaado ma wax kale iska daa ururkan waxaan hubaa hadduu sida hadda uu ku socdo oo san laab gelin ururka ummadda Soomaaliyeed oo Israel oo kale inuu noqon doono yaan rajaynaya sababtoo waxa weeye rabitaanka ummadda Soomaaliyeed baan garanaya السلام عليكم دمانتي وايدين سلامي ان مستر تهليل ونك سلامي ان waxaan u mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaasha iyo marti sharafta kale iyo dhammaan xubnaha xisbiga tayo in marka ugu horeysa halkan waxaan uga mahadnaqayaa shaqadii fiicneyd ee uu soo qabtay gudoomiyihii hadii naga tagaya Dr. Abdul Qadir Khaliif waxaan ku rajeynayaa in shaqada aad qabanayso oo ah aasaaskii nolosha maadaama aad ka fikirtay in
aadan siyaasad iyo howlo kale aadan gelin in dhankii waxbarashada oo loo baahanyay in aad soo dhiso aad gasho in ilaahay ku fudaydiyo uu kuguna nabad yeelo waxaanan hambaliyeynayaa oonan soo dhaweynayaa saaxiibkay Kaysa Cadami oo nin aan in badan isnaqaano oonan u arkay inuu yahay nin karti leh oo loo soo xulay kana bixi kara shaqadan oo aan u rajeynay isagana in ilaahay uu fudaydiyo shaqadaas oo halkii ay joogtay uu ka sii ambaqaado oo meel xisbi ahaan oo balaarina uu gaarsiiyo dhalinyar ahaan ama dadka waxaan ku dhiirigelinaa in xisbiga fikirkiisa wax ku bilaabma hal qof ama dhowr qof baa aragtiis kula timaada wuxuuna gaaraa mujtamac buu gaaraa ani taageerada xisbigan aan u muujiyey waxa ay ka soo bilaabeen sida Cumar Diire sheegay waxaan dadkii maalintii masaajidka maxbuub lagu qabtay kulankii horeysay ka soo qayb galay iyo markii la iclaaminayeen mudaharaadkii wasaaradda arrimaha dibadda loo qabanay maalin Jimcaha Roobdaayo dadkii koobnaa ka soo qayb galay meesha ka hadlayna ka mid baana tan iyo maalintiina waxaan ahay qof taageero waa xisbigaas taageerina mabdiisa fikirkiisa in uu arkay xisbigaasi in uu ka duwan yahay macnihii garabyada kale ee siyaasadda Soomaaliya jira uuna yahay xisbi loo arko mid soo celin karaya ama ay ka dhex muuqato rajadii ummadda Soomaaliyeed markaas waxaan rajeynayaa in dhammaanteen aynu u dadaal galno sidii xisbigaasi u dhaqaaqi lahaa haddii ay noqoto dhalinyaro iyo haween iyo waaweynba aan gaarsiino bulshada macnaheedu hadday noqoto dhaqaale ururin iyo soo biirin xisbiga lagu soo biiriyo waxaan adeegsan karnaa hadda aalado badan oo hadda jira oo Facebook Twitter oo qofka si uu gaarsiin karo asxaabtii u sheegi karo oo fikir ahaan dunida maanta waxa la isku taageeraa waxa weeyaan mabda iyo ajandayaal baa la isku taageeraa reernimo ma la isku taageero qofku mabda uu rabo haddii uu yahay nin bidix ama midig ama centruma ayuu taageerayaa oo ku qanacsan yahay marka qofkii maanta arkay in qarannimo rabo dadka okay waa loo wada ooyaa in la arko dawladnimadii iyo sharaftii ay soo noqoto oo laga baxo dhibaatada iyo burburkan iyo bahdilnaantan meel kasta taala marka hadii qofkii run raba waa in loo fidiyo baaq oo loo sheego oo la gaarsiiyo la yiraahdo halkan bay ka muuqataa halkan ba macnihii raadkaasi u yaala oo laga heli karaa raadkan soo raaco anaga nagu soo biir xaqii hadii ay noqoto dhanka dhaqaalahana qof kasta 50 kron 100 kron waa awoodaa ka bixi kartaa bishii in la sameeyo contingent year oo content loo sameeyo oo qof kasta inuu bixin karo waanan idin maadnaqaya adiga tahliil iyo kar shukri dhoomi iyo warbaahinta oo mar walba iyaguna u taagan in ay gudbiyaan oo ay gaarsiiyaan dalka gudaha iyo dibadba waanan idin salaamay dhamaantiin hadal ugu talagalay horta waa iska argagaysan horta raali ahaada horta dhamaantiin maartay odayaashii dhalinyarada iyo dumarku horta waa mahadsantiin horan waan ugu mahad celiyay gudoomiyeena horaana waa loo mahad celiyay waa mahadsan yahay gudoomiyaha cusubna soo dhawaad waan leeyahay horta mahad badan ma jirto sababtoo ah hawsha aan wada wadno cid loogu mahadinayo iska yar oo ama dadka shaqada ha noqdaan ama dadka ha yimaadaan waxaan ka hadlayna waxa weeye maartay mustaqbalkii wadankeena macnaha mustaqbalka caruurtooda laga hadlaya hadday hadalada waxa ku jirta inaan gaari maqaan odayaal dhahay jirta arrin marka la qabanayo looma qabto maanta inaa wax hesho arrin waxa loo qabto waxa waaye qabo hawshan wanaageeda ka dhimo caruurta dhasha isticmaasho marka ma dhimata Allah naxariis ninkaas noo sameeyay hal wiirada horta arrin loo qabaa horta qalbigiina ka saara inaa maanta wax wada qabsataan horta maanta wax heshaan wax walba adduunka la soo sameeyayna waqti dheer la soo bilaabay dadkii soo sameeyay dib u raaca shucuuriyadda ninkii keenaa intuu jooga maanta mu arag shucuuriyaddan maartay ilaa intaas gaartay mu arkin dimuqraadiyada sidoo kale waddankan ay joogtaan xisbiyada ka jira xisbiga weyn waxaan leeyahay Arbes Party-ga inay amaleen hooyday goorma la asaasay ragii asaasay wax ma ka heleen laakiin maanta anagu wataa adduunka ka nimid waa maartay fikradii asaaseen maanta wax ka helay horta xisbiyada la asaasay sidaas horta inaan u fahamnaa loo baahan yahay meeshan waxa maartay halkan laga wada dhawaaqijiyay in la maartay la imaado lacag la bixiyo wax la sameeyo horta marka hore qalbiga ka dhaadhiciya waxa ay wadato in horta la faaq wadato aan ima wadid hebel uma wadid iska iloo waxaas ninka xisbiga leedar ka waa socona waa dhimanaya meesha laakiin adiga horta qalbiga gasho waxa qabsanayso adiga inay tahay mu baahan tahay hadaa u baahneen iska soco laakiin Soomaaliya waxaan ii sheegayaa maanta wax nooga baahi badan inaan group isku raacno dan isku raacno ma jirto qabiila mar walba ku celceliseen halaan iga warnay qabiilka qabiilka wax mashaakil ma ana ma arko Soomaaliya problemkeedu inuu qabiil yahay dadka inta badan qabiil kor ka saaraan ma arko because qabiilka horta qabiilka ka dhalato ma ana qabiilka ka dhasho ma ana qabiilkayga maxaa rabaa horta mooriyaa inuu ahaado oo wax dhaco dhibaato ku jiro muu rabaa mise inuu horumar gaaro oo adduunkan la sheegay la tartamo rabaa horta kee rabaa horta aniga
haddii aniga aan rabo marka qabiilka aan ka dhashay aniga ismaaciil ahaan ah qabiilkayga hadduu rabo inuu horumar gaaro oo wax qabsado ismaaciil qabsado qabiil kale inaan aqbalo waa ku qasbannahay mayokaadi waa ku qasbannahay qabiil kale inaan aqbalo haddii qabiil kale ee soomaaliyeed ani aan diido macnaheeda mooryaan iyo wasaqnimaan rabnaa horumar ma rabno waay marka ani ma arka marka waxaan problemka nayst qabiil inuu yahay waa wax jaahil in haysto iyo leedar xumaan haysto wax kale haysto malaha waa in maaragtay marka urur la samaysto leedaro imaadaan horumar la gaaro marka ani waxaan ugu gawaabinaa horta nimayo ama gabdho iyo dumar odayaalo war waxaa horta qalbiga hanaga ahaato ina waxaadan qalbiga salaada tukatooda qalbiga ku jira mee ku soconaysaa nidaamkaana waa nidaam waxa waaye maaragtay qalbiga inuu naga ahaado waay aadaan nigu mahad celinayaa maaragtay mahadiinu waa iska badata dayn waa nin sheegay mahad badan ma jirto waa xafiisaa noo furan meeshaan xafiiskan wuxuu u furan yahay guddoomiyaha uma furno maamulka uma furno shacabka soomaaliyeed u furan yahay siyaasadda gudaha soomaaliya aan ka wadnaa kii intaa wax naga wadnaa cid walba u furan yahay problem norway ka haysta waa ku soo dhawaan kartiin dad kale u sheegi kartiin dumar ha aadaan caruur ha aadaan waxay rabto waa ka caawina diyaara unahay lacag la-aan nagu caawinaynaa lacag keenana yiri lacagta iska haysta noo imaado xafiiska maamusha waxaan u mahad celinayaa waxa waaye maaragtay meediyaasha maaragtay kulligood magacyadii ma sheegaya meediyaasha Soomaaliland meeshan ku dhan waxa waaye kulli ma wada waaweyn kulligood maya aad u mahadsantihiin shaqo badan oo wadan ka wadaan idinkii dadkiina ka shaqeeyay iyo dadkiina soo asaasay maaragtay waa niid duceyn hadii la yiraahdo soo dhawaada waa furintin aad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال صاحبيال halkani waa telefishinka Somali Channel oo ay suura gashay inuu socdaal shaqo ku soo gaaro caasimadda dalka Norway ee Oslo taasoo lagu soo bandhigayay isla markaasna lagu xuseeyay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay furitaanka xafiiska Tayo Party ee Oslo waxa ay suura gashay inaan maantayto waraysi kooban la yeesho gudoomiyihii hore ee xisbiga dalkani Norway afhayeenka iyo waliba Cabdi Tahliil oo kamid ah howlwadeenada xisbiga Tayo ee Norway xafladan oo ah mid si weyn loo soo agaasimay oo dad aad u far badan ay ka soo qayb galeen ayaan qaybaha hore idinku soo gudbinaynaa waraysiga aynu ka qaadayno mas'uuliyiinta xisbiga Tayo ee Norway karar shukri dhoomay baan ku hormarayaa oo ah afhayeenka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa keenay in si gaar ah maanta loo xiso xafiiska ama furitaanka xafiiska Tayo ee Norway muhiimadda gaarka oo ay idin leedahay iyo wax qabadkiinii aad soo qabateen sanadkii aad jirteen bismillaahir rahmaanir rahiim wax qabadkii sanadkan soo qabanay waxaan ku soo bandhignay xafladda hawl badan ayaan qabanay siyaasadii ka socotay dalka ayaan qayb ka ahayn waan ku faraxsanahay qaabka ay u dhacday doorashadii in dawladda Soomaaliya maanta ay leedahay hoggaan oo maanta aan ka baxnay ku meel gaarkii xafladani waxaan u dabaaldegaynaa waa furitaankii xafiiska oo hadda hal sanad jirsaday sanad guuradii isla markaana uu gudoomiyaheenna hore Cabdiqaadir Khaliif oo asagana nooga tagaya oo xilliga hadda xafiiska ku wareejiya oo gudoomiye cusub la doortay ayaan soo bandhigaynaa si ay noogu noqoto taariikh iyo milestone wax la yiraahdo oo hadhowtaan ka ambaqaadno Cabdiqaadir adiga oo mahadsan gudoomiyihii xisbiga Tayo ee Norway baad ahayd sanadkiina wax badan baad soo qabateen saan filayo bal adiga oo soo koobaya sanadkaas aad jirtay wixii idin soo maray oo caqabadaha ahaa sanad cusub baa soo socdo aad hoggaan cusub dooranaysaan wax qabadkaagii baan rabnaa inaad noo sheegtid bismillaahir rahmaanir rahiim wad mahadsantahay walaal horta sida afhayeenku sheegay xisbigu hal sano ayuu furan yahay xafiiskiisa Oslo halkan inuu isdhisay oo xafiis furtay oo maamul yeeshay oo ummadda Soomaaliyeed halkan joogta uu mobilize gareeyay ilaa xad aad buu ugu guuleystay wada shaqayn buu la lahaa madaxda sare ee xisbiga sida Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo Dr. Maryan iyo madaxda sare ee xisbiga heer qaran waan dhisnay faracani wuu dhisan yahay wuu kacay xafiiskani waxa kaliya oo aan sugaynaa waxa waaye xafiiskan oo qayb ka ah xisbiga Tayo ee heer qaran
oo ah xisbi aad u xoog weyn oo siyaasadda waddanka hagiddeeda iyo hoggaan soo saarideeda iyo hoggaankeeda iyo hagaajinta dalka qaybtiisa ka qaata ayaan sugaynaa maanta waa sanad guuradii waa maamulkiibaa isbedel yani guddi cusub baan dooranaynaa insha allah kadibna waxaan gudageli doonaa inaan xisbiga xafiiskiisa halkana sii xoojino sii ballaarino kadibna aan haddii ilaahay yidhaahdo dhismaha xisbiga ee heer qaran iyo brogaraamkii qaran insha allah aan galno cabdi xisbigiina wax badan buu soo qabtay sida guddoomiyahagu sheegay sanadkan cusub maxaad filaysaan inaad qabataan bismillaah wax walba waxay leeyihiin habka loogu dhaqaaqo ayaa mirahooda loo gurtaa energyga nagu jira dadaalka nagu jira khibradda halkii sano ee hore ee aan soo marnay anagoo kaashanayna taargetka xisbiga uu leeyahay oo ah marka golaheena baarlamaanka maantay dhisani uu ansixiyo nidaamka axsaabta badan inaanu hal tilaabo hore u qaadno oo ah inaanu ansixino meel marino sidii xisbigan u noqon lahaa xisbi qaran baarlamaanku aqoonsan yahay dastuuri ah marka waxaan filaynaa waxa weeyaan miro aad iyo aad u macaan qof kastoo Soomaaliya isku haleyn karo inaan beero qof kastana uu geeskiisa ka gurto anagu waxaan nahay qaadimiin shaqaale ah ee maanta jooga waxaan marka rabnaa inaan qabano midka bari imaanaya meeshii uu ka sii anba qaadi lahaa ee uu ka soo gali lahaa siyaasadda bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa injineer Karar Shukri Doomey oo ah xogayaha xisbiga Tayo faraciisa Oslo waxaan ku suganahay hadda xafiiskii faraca ee Oslo halkaasoon meediyaha aan ugu yeernay aan shir jaraa'id ku qabanayno shirkan jaraa'id waa shir looga arinsanayo araah ka soo baxday meediyaha oo dhan oo ay qorayaan maalmahan oo ay leeyihiin in xisbiga Tayo xogayihiisa mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo uu la hadlay meediyaha halkaasoo uu kaga hadlay arrinta Soomaaliya shirkan jaraa'id ayaan ka soo saarnay qodobo aan ku beeninayno qoraalada ay website-yada Soomaaliyeed iyo meediyaha generalkaba ay ka qoreen halkaasoon u aragnay inaysan wax sax ahayn oo aan wax sala ku lahayn xisbiga Tayo farac ahaan iyo xisbiga guud waxaan u gudbinayaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Tayo qaybtiisa Oslo Norway oo halkaasi si official aga jeedin doona dhambaalkii ka soo baxay xafiiska guud iyo xafiiska faraca Osloba xafiiska Tayo ku soo dhawo mudan bismillaah aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa meediyada sharafta leh ee halkaan noogu timid inkastoo waxa aan ka cabanayna qayb kamid ah ay faafiyeen meediyadu mareegta lagu qoro wararka ayaa waxaa ku soo baxday in xogayaha xisbiga maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka hadlay qaraxyadii ka dhacay xamar amniga xamar iyo waxyaabo kaleeto ee ku saabsan hawshaas halkan waxaan ku haynaa warqad haddaan dhinaca kale u jeediyo aan meediyada hadhow siin doono iyadoo sidaas u qoran warqadaas si official ayay nooga soo baxday annaga waxaana leenahay wararka lagu soo qoray meediyadu ma ahan warar si official ah annaga nooga yimid wuu qurxoon yahay hadalku laakiin si kasta uu qurxoon yahay ma ahan inaan qaadano hadal ku soo baxay si aan ahayn official xisbigu wuxuu leeyahay hab faafin xisbigu wuxuu leeyahay qaanuun la raaco oo looga hadlayo marka la rabo in wax la soo daayo haddii uusan xubin hoggaanka xisbiga ka mid ah ku saxiixnayn qoraalkaasi ma ahan mid la qaadan karo ma ahan mid la soo xigan karo mana ahan mid lagu kalsoonaan karahayo run ahaanshihiisa sidaa daraaddeed xisbiga Tayo laantiisa Oslo iyo guud ahaan xisbiga laamihiisa kaleeto ee caalamka uu ku leeyahay ilaa guddoomiyaha xogayaha guud dhammaantood waxay isku raacsiisan yihiin inay sida tan aan wax u dhiraahno shir jaraa'id xisbiga Tayo Oslo 23 bishii 6 maalin axad ah ujeedo beenin war ku soo baxay saxaafadda xisbigu waxa uu beeninayaa in aanu warka saxaafadda ku qoran ee lagu leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa yiri waxaan cadeynaynaa in aanu warkaasi xogayaheenu oranin sidoo kale xisbiguna aanu ka soo bixin warkaasi si kasta oo warkaasi u qurxoon yahay ma ahan inaan qaadano war aan annaga naga soo bixin fiiro gaar ah waxaan saxaafadda ka codsanaynaa in aysan faafin war aanan sugnayn khaasatan xisbiga Tayo Party wax mas'uuliyada kama saarna waxay mas'uuliyad ka saaran tahay sugidda warka ku soo baxaya
magaca xisbiga iyo kan hogaankaba sidaa daraaddeed saxaafadda waxaa leenahay waa mahadsantihiin warka lagu soo qoray idaacaduhuna war jira ma ahan xogahayaheenna guddoomiyaheenu sidaa ogtihiinba maryan qaasimba ah oo hadda ah wasiirka dowladda ugu tunka weyn sidaa daraaddeed xogahayaheenna maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaarihii hore qaranku warkaa ma oranin kamana hadlanin haddii uu ka hadlayana asaga ayaa saxaafadda soo hor istaagaya oo si toos u oran lahaa haddii anagu aanu qaraxyadii xamar ka dhacay iyo wax lamida aan rabnaa ka hadalno annaga ayaa meediya soo hor istaagayna dadka qoraalkaas qoray raaligelin ha ka bixiyeen bulshadana ha u laabteen ha yidhahdeen warkaasi annagaa qoray dabcan kuwa dambana waa u digaynaa waxaan leenahay qofna yuuna ku dhiiranin inuu magaca xisbiga ku faafiyo war aan annaga naga soo bixin waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جزاء آد يا آد يا آد أيان إذا كوجو مهد علينا ربي أجر يا حسنات هاي كسي وقت قالجة هاي أصاب حسين ربي أجر يا حسنات هاي كسي مسكحدي إن قالجة يا نجوب يرسين ربي أجر يا حسنات هاي كسي وح الله لا يوحي هولا أي آد نلقى وتين مانتي مال كلبا وما هسيه سيده هرب الله شيء جاي مية ديدا دمانتيد سومالي ساد وما هسيه هاي سومالي جنرال وما هسيه هاي رويال تي في وما هسيه هاي نور سوم تي في وما هسيه هاي سبدون راديو waa mahadsan yahay nuxur waa mahadsan yahay dhammaan inta kale aan magacaabin ayaguna waa mahadsan yihiin sidaas iyo nabadgelyo kulanti dambe oo xiiso leh insha Allah khayr insha Allah khayr insha Allah khayr tayo tanaasul tala wanaag ان شاء الله